subaxdii baan ka lahaa afartan kaca markaan afarta kaco waxaan tagaa kawaanka markaan tago dabeedna waxaan ka imaadaa ilaa 6 halkan soo galaa 7 bilaabaa shaqada kolkaan dhameeyo beergeelka dhameeyo waxaan qadadan bilaabaa waxaan iibiyaa hilib iyo baasto iyo bariis inta markaan dhameeyo 12 ay iga dhamaatay ilaa 2 qaadkaas iimaada waan goglaa waxaan kariyaa shaaha ilaa 10 habeenimo ilaa 10 na shaah baan kariyaa ma dayno jimcaha kaliya qadada karin inta kale waan wadaa shaqada ma badaayo 22 sano ma daayo ugu kalifay awlaadaydoo yaryar ayuu aabahood dhintay caruurtayduna wada hablay haayeen aadanow sibana hablaha hadduu aabahood dhinto dadku way yeesaano ma jecla marka waxaan jeclaaday awlaadaydii maadaama ay wada hablayihiin yaryar yihiin inaan u shaqeeyo dabeedna waan iska soo baxay ilaahay baan tala saartay shaqadan bilaabay markii aan dabeetana bilaabay waxaan in badan baan hooyo shaqada u soo samray waxaan rajaysanayay inuu ilaahay iga dhigayo iga siinayo wax fiican haddii aan xoogayga u samro oon ilaahay wax weydiisto oona bilaadan waxba weydiisan ilaahay dabeetana wuu ii barakeeyey awlaadaydu waan ku koriyey hanti waan uga sameeyey jagooyin waan ka iibsaday dee maasha Allah baan kaga jiraa imakana waxaan beegsanayaa inuu ilaahay xaramkii xashkii aan galo oon tago arinta wallahi waan u diraayo qaar badan oo halkan iigu yimaadaba waxaan ku idhahaa wax bilaadan idin siiya waxba idin tari maayo waxbana idin qaban maaye xoogiina ku shaqaysto oo shaqada waan ku qalqaaliyaa qaar badan oo aan shaqooyinkan oo kala geliyeen way jiraan oo sidaydan oo kale aan idin shaqaysto oo shaqeeya oo sidaydan oo kale iyaguna imka caruurtoodii u shaqeeyeen ku qalqaaliyay oo anigu aan gacan qabtay oo meesha beerka geeyay oo beerar uga soo qaaday oo aan wax la qalqaaliyay ayaa xitaa jira qaar badan oo aan shaqaysanina way jiraan oo bilaadankaas wax ka doona waxaanan kula dardaarmayaa inay awlaadooda u shaqeeyaan xoogoodana ku shaqaystaan waxaad xoogaaga ku shaqaysataa baa macaani oo laga dhargaayay